إن الدين عند الله الإسلام. diinta saxda ah ee xagga alla ka diiwaan gashan kana shaqeysa waa diinta islaamka. tiradoodu waxay ka yar tahay 1000 qofood ee waa 800 oo qofood. ambiyadoo dhan way beeninayaan ilaa nabi muuse calayhi salaatu wassalaam mooyee. waxay dhaqan iyo qaab ahaan shabahaan reer bani israa'iil ama yahuuda. magacoodna waxaa loo magacaabaa saamiriyiinta. diintoodna sidoo kale waa saamiri. waxayna ka soo jeedaan dhaqan ahaan iyo diin ahaan reer bani israa'iil, balse waa ay khilaafsan yihiin. iyaga iyo reer bani israa'iil ama yahuuda waxaa ka dhexeeya dagaal aad iyo aad u weyn, hadday ahaan lahayd midka afka iyo sidoo kale mid gacanta. waxayna soo mareen dagaalo fara badan iyo colaado fara badan. muuqaalkiina daawadayaal waxaan ku soo qaadan doonaa dad dhaqan ahaan iyo diin ahaan u eg yahuuda balse khilaafsan. halqabsigiina ayaa ah tabin iyo tusaale iyo tusmo xooggan ayaad ka helaysaa janalkan. waxaan rajaynayaa inuu muuqaalkan ku qancin doono oo aad ka bogan doontiin insha Allah. السلام عليكم. inkastoo aan hore u soo sheegnay dadkan in ay la egyihiin tiro ahaan 800 oo qofood, ambiyadoo dhan way khilaafsan yihiin marka laga reebo nabi muuse calayhi salaatu wassalaam. waxayna leeyihiin ambiyada ma jirto ilaa nabi muuse mooyee. waxay khilaafsan yihiin dhammaan ambiyada alla subxaanahu wa tacaala marka laga reebo nabi muuse calayhi salaatu wassalaam oo ah nabi loo soo diray reer bani israa'iil. waxay ka aaminsan yihiin dadka yahuudda ah ee reer bani israa'iil in ay ku xadgudbeen diintooda, taas oo sababtay in ay baxsadaan magac iyo diin u gaar ah. magacoodna waxaa lagu magacaabaa saamiriyiinta. diintooda waxay leedahay arkaaniyaad gaaraya ilaa 5 qaybood. rugniga koowaad ay rumaysan yihiin ayaa ah in alla subxaanahu wa tacaala oo keliyahay keligiisna in la caabudo. rugniga labaad ay rumaysan yihiin ayaa ah in nabi muuse uu yahay nebigooda, inta kale ee ka soo hartay ambiyada ah aysan jirin, mana rumaysano nebi kale. sidoo kale raqamka saddexaad ayaa ah in ay rumaysan yihiin kutubka towraad. nambarka afraad in ay rumaysan yihiin buurta jasriim ama buurta loo yaqaano jabaluduur. raqamka shanaad ahna raqamka ugu dambeeyo in ay rumaysan yihiin maalinta qiyaamaha. dadkan yahuudda ayaa ah dad kala duwan dhaqan ahaan, balse abtiris iyo diin ahaan iyo farac ahaan oo isku abtirsadaan, balse waxay ku kala duwan yihiin bedelidda kutubada iyo inxiraaf gareenta iyo ku dhaqanka diintooda. dadkan yahuudda asal ahaan way isku abtirsadaan, waxayna isla yihiin reer bani israa'iil, balse magac ahaan iyo dhaqan ahaan ayay kala duwan yihiin. diinta yahuudda sida muuqaalkii hore aan ku soo qaadanay waxaa aasaas u ah 10 tiir ama basic u ah. sidoo kale diintan waxaa aasaas u ah ama basic u ah diintan lagu magacaabo samaritaaniska ama saamiriyadda 5 tiir. waxayna ka mid tahay diintan diimaha qadiimka ah oo caalamka saameynta ku soo yeeshay, inkasta tiradooda ay iska yar tahay oo ay ka yar tahay 1000 qofood oo ay la egyihiin 800 oo qofood. waxayna ku nool yihiin markaasi buurta lagu magacaabo jabaluduur ama loo yaqaano buurta jasriim ee ku taala dhulka Falastiin. marka laga hadlayo booska saxda ah ee muqaddaska oo ay aaminsan yihiin yahuuddu, waxay aaminsan tahay booska muqaddaska ee saxda ah in uu yahay baytul maqdis. dadkani waxay aaminsan yihiin booska saxda ah ee muqaddaska in uu yahay jabaluduur ama buurta lagu magacaabo jasriim ee ku taala dhulka Falastiin. diinta marka laga hadlayo luqadaha, luqadda ingiriiska waxaa loo magacaabaa samaritaaniska, luqadda carabiga waxaa loo magacaabaa saamiriyiinta, luqadda markaas cibriga waxaa loo magacaabaa shamriin. saamiriyiinta waxay sheegtaan in ay ka soo jeedaan nebi israa'iil oo ula jeedaan nebi yacquub calayhi salaatu wassalaam, iyagana ay haystaan diinta saxda ah, balse ay ku tilmaamaan in ay baadiyeysan yihiin dadka loo magacaabo yahuudda ama reer bani israa'iil. inkastoo magaca ay wadaagaan reer bani israa'iil, balse waxay ku kala duwan yihiin magacan kale oo ah yahuudda iyo saamiriyiinta. saamiriyiinta marka laga hadlayo iyo taariikhdooda waxa ay sheegaan in ay ka soo haajireen dhulka uu ka talin jiray fircoon oo ahaa Masar, haddana ay degan yihiin dhulkan lagu magacaabo Falastiin. sanadka iyo tirada saxda ah marka laga hadlayo oo ay sheegaan 3600 oo sano ka hor. saamiriyiintu waxay tugtaan salaada subax iyo salaada casirka oo keliya. 5 salaadood ama 5 markaasi maalmood maalinlaha ay u tukadaan waa salaada casirka iyo salaad subax oo keliya. salaadaha kale ma aqoonsana mana tukadaan, iyagoo aaminsan in salaada ay alla subxaanahu wa tacaala ugu dhowaanayaan. saamiriyiintu waxay xusaan maalinta sabtida ah. marka laga hadlayo soonkooda waxay soomaan sanadkii oo dhan hal maalin oo keliya.
saamiriyiintu maalintan ay soomayaan waxay u yaqaanaan maalinta dambi dhaafka. dhammaantood waa ay soomaan yar iyo weyn siday u yihiinba. saamiriyiintu waxay bixiyaan sakada, sidoo kale waxay xajiyaan sanadkii 3 mar, waxayna u xajiyaan buurta lagu magacaabo Jasriim ama Jabaluduur ee ku taala dhulka iyo Falastiin. saamiriyiintu waxay aaminsan yihiin Jabaluduur ama Jasriim buurta lagu magacaabo in ay tahay muqadas. sidoo kale yahuuddu waxay aaminsan yihiin Baytulmaqdes. marka laga hadlayo dhanka guurkooda iyo faracooda, saamiriyiintu ma ogola qof aan markaasi diintooda aan ka mid ahayn. qofka markaasi qaangaarka ah ee ragga ah waxaa loo ogol yahay in uu guursado gabadh uu rabo, balse waxaa shardi ah in gabadhaasi ay tahay mid haysato diinta saamiriyadda. sidoo kale gabadha looma ogola in ay guursato qof markaasi aan ahayn saamiri. haddii markaasi ay guursato qof markaasi diintooda ka baxsan, diintooda waa ay ka saaraan. saamiriyiinta waxaa ka mid waxyaabaha dhaqankooda in markaasi ay cuneen cuntooyinka markaasi laga keeno dibadda. sidoo kale ma ogolaan in ay cunaan xoolo markaasi aan lagu gowracin diintooda. saamiriyiintu waxay ka mid tahay luqadooda cibrigii hore, waana luqad aad iyo aad qadiim u ah. saamiriyiintu waxaa lagu xantaa oo lagu sheegaa in ay yihiin dad suxaro ama kuhaan ah, laakiin iyagu waa ay diidaan, sidoo kale waa ay beeniyaan, waxayna sheegaan in diintooda xaaraan ay ka yihiin sixirka iyo waxyaabaha markaasi khuraafaadka ah. saamiriyiintu way necban yihiin dadka yuhuudda, waayna iska fogeeyaan diintoodii dhaqankooda, inkastoo ay wadaagaan magaca iyo isirka ee Israa'iil. saamiriyiintu waxay weligooda aaminsanaayeen kitaabka saxda ee Towraadka ah ee Nabi Muuse in ay haystaan. sidoo kale waxay aaminsan yihiin yahuudda inay haystaan diin markaasi khuraafaad ah iyo kutubo markaas la inxiraaf gareeyay. saamiriyiintu waxay aaminsan yihiin asalkooda iyo faracooda inuu yahay Nabi Aadam calayhi salaatu wassalaam. sidoo kale waxay aaminsan yihiin awowgooda tobanaad inuu yahay Nabi Ibraahim calayhi salaatu wassalaam. kutubka saxda ah inuu yahay Towraad, nebigooda saxda inuu yahay Nabi Muuse calayhi salaatu wassalaam. sidoo kale ambiyada ka soo hartay in aysan jirin. markii uu ka soo dhex saaray Nabi Muuse calayhi salaatu wassalaam Allah subxaanahu wa tacaala, isla markaana uu ugu dhigay nebi, waxay u adkaysan waayeen gumaysi markaasi uu ku hayay Fircoon, waxayna ka soo hijroodeen markaasi magaalada lagu magacaabo Masar, waxayna soo aadeen dhanka iyo Falastiin, iyagoo markaasi degay buurta lagu magacaabo Jabaluduur, isla markaana uu hoggaanka u hayo Yuushac ibnu Nuun. waa sida ay sheegaan. saamiriyiintu waxay beeniyaan dhammaan nebiyadii Allah subxaanahu wa tacaala uu soo diray marka laga reebo Nabi Muuse calayhi salaatu wassalaam iyo sidoo kale Yuushac ibnu Nuun. Yuushac ibnu Nuun waxaa lagu sheegay kitaabkooda, sidaa darteed way aqoonsan yihiin, waayna aaminsan yihiin. saamiriyiintu waxay sheegaan in markii Qudus ay la wareegay muslimiinta iyo saamiriyiintana ay isgarab degeen, saamiriyiinta markaasi diintooda ay xor u ahaayeen oo ay haysteen, isla markaana ay ku faraxsanaayeen khilaafkii ka dhexeeyay islaamka iyo in la xaliyay, waxayna noqdeen qaybo ka mid ah saamiriyiinta dad islaam ah. saamiriyiintu waxay aaminsan yihiin in ay yihiin dad Falastiiniyiin ah, sidoo kale waxay iska fogeeyaan in ay yihiin dad Yahuud ah. haddii aad ka heshay mawduucan, fadlan muuqaalka like saar, laakiin waxay naga caawinaysaa in muuqaalka uu gaaro asxaab fara badan. sidoo kale haddii aad tahay mid ku cusub janalka, taawo calaamadda gaduuda ee subscribe-ta. waad ku mahadsan tahay daawashadaada iyo wakhtiga aadna siisay. haatan waxaan soo gaarnay guntii gunaanadka barnaamijka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.